عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد إن جعلها إن شاء الله بإذن الله الرحمن. ما تمشي مع كالصعدة حاميشان كالصعدة دقنين هو يوينك كالصعدة وانا فشتك إنه هو يكستا وقعدتو يا أبا كستا فضلا بحاشان على قيسان وبحاشي لركميديسي dhibaatooyin fara badan ilmaha yar way ku leedahay iyada iyo waxyaabo fara badan oo kale oo aan idin tusi doonaa haddii rabbiga raxmaanka raalliga ahaado. Bahashan afaafkeeda hadda waan furay, dhar baan ka guray. Markaas saas way yara leydsanaysaa. Hadda wuu hurdaa ilmihii, waa subax salaad hore. Dharkaygii baan dhaqday, dharkii baan ka guray, dharkan aan ku guraya insha allah waa axad biidnillaahi raxmaan. Waxaan sameynaa hadda sidaa kagama tagaayo way yara leydsanaysaa intaan anigu suuliga ku jiro. Markaan ka baxo iyo sidaan idhaahdo, haddii matalan oo kale aad ka baxdo hooyo, ilmaha yari adiga oon arkaynin suuliga uu soo galo wuu geli karaa, fiiri wuu geli karaa. Teeda kale waxaad aad u ogaataa la socotaa tan markuu galo albaabka wuu xidhi karaa waayo waa ilmo yar, qalbigiisa iyo niyadiisa kuma filna, wuu xidhi karaa. Teeda kale halkan karaan idin tusayaa. Markaa maxaan sameeyaa anigu aan raba inaan idinka faa'iideeyo. Qasaaladu bartaasay ku jirtaa sax? Waxaan sameynayaa ila eega insha allah. Waxaan sameeyey ee halkaa kaaga baxay. Waa fishtig inuu aabba kasta iyo hooyo kasta ogaato. waana khasaare aad u fara badan inay dhibaato kaaga timaado wax gurigaaga yaala insha allah biidnillaahi raxmaan. ilaahayna dhibaato haynaga hayo. inaad taxadirtana markasta waa loo baahan yahay, hooyo kasta iyo aabba kasta. maxaan halkaas sameeyey mar maaho laba maaha intaan ku arkay ilmaha iyadoo taabanaysa ilmaha yari. markaa maalinta dambe waxay isku eegaysaa si dharka loo geliya adiguna u dhex gal, ma fahanta? marka caqli ma leh ilmuhu haddaanad adiga caqli u ah, hooyada iyo aabbaha ayaa caqli u ah. waan ka saaray. waa fishtig weeye hooyo kasta iyo aabba kasta inuu ogaado alaabadan iyo alaabooyin kale oo fara badan. hooyooyin fara badanna way ku dhacday, aabbayaal fara badanna way ku dhacday markii dambena dhexday farta ka qalineen. ilaahi subxaana watacaala haynaga hayo. halkaasi intaasay ku dhammaatay baan filayaa. waan ka saaraa marka hadda, laakiinse suuliga aniga ayaa ku dhex jira. waan u baahanahay dhar kalaan gelinayaa. maanta waa dhar dhaqid, dhar kalaan gelinayaa insha allah biidnillaahi raxmaan. dhar kalaan gelinayaa biidnillaahi raxmaan. halkaa waan ka saaray, waan dhameeyay. Okay, let us go. soo raaca suuliga dhexdiisaan ka hadla. alaabooyinka waa arkaysaan. waxaan halkaa u saaray waa suuliga korkiisii weeye, korkii suuliga waaye. waxaan halkaa u saaray. haddii halkaa hoose waxaa ii ooli lahaa waxaa ii yaala laba kabadh oo nidi tusi doono biidnillaahi raxmaan. maxaan kabadhadaa u gelin waayey ama meelaha hoose intaan bahal yar ku guro aan u saari waayey. waxa weeye ilmuhu uu soo qaadaya, weliba kanbaa aad u daran. bismillaahi raxmaan raxiim. beri aan xalqad aad u fara badan dhegaysanayay oo tan oo kale ku dhacday ilmo, laakiin kan muu ahayn wax noocana oo dharka lagu maydho ayuu cabay. ilmo yaraa barti bay naftu kaga dhacday. bismillaahi raxmaan raxiim. ilaahay subxaana watacaala haynaga hayo. meel kastoo aynu joognaba intaynu taxadiri karaynana carruurteena aynu la taxadirno. ilaahay baa taxadirka bixiya. way buuxsantay baan filayaa.